تعال هدو شيء inkastoo dadku badan yahay oo ay ummadda meesha ka badan tahay haddana waxaanu gaadhsiino intii ugu jilicsanay baan eenu ka fog yeelnay dad badanina meesha wuu ku nool yahay laakiin intii ugu jilicsanayd marka أنا رحيم عاو أي جمعة هاي رنتي تاريخنا هاي بيشنا فلينا اللي بيتوان تاي وحنا جعلنا هالكن عن كشجع راشين كنا جسوا قاري كنت دعبارة راشين التركيين وكان دولة التركيين وعاوسي وحنا كوقا منا سجاري الله تنقود أيو راشين كسجاري سجاري الله تنقود وافرت الدجمية قبل كواي كوبين أيو قاري degmada Selo galbeedka ugu xigta iyo kumburaha oo bariga ugu xiga runtii si wacan baa raashinka loo qaybiyay waxaan aad ugu mahad celinayaa guddiga 6 xubnood ahaa raashinka ka soo guddida abaaraha kala soo wareegay oo si wacan u shaqeeyay 4 maayar oo runtii iyaguna la shaqeeyo gacan weysiiyay xildhibaanada golaha deegaanka madaxda booliska taliyaha qaybta iyo bilayska kale iyo madax kale oo nala shaqeysay runtii aad baan ugu mahad celinayaa aad baan ugu mahad celinayaa raashinkana dadkii runtii mustaxaqa ku ahaa buu gaaray 2 maalmood gudahoodana waa ku soo afjarmeen oo caawa wax yaala meel oo raashinka ka mid ah oo aan la qaybin ma jiraan aad baan ugu mahad celinaynaa guddida abaaraha ee qaranka aad baan ugu mahad celinaynaa runtii hoggaanka dalka madaxweynuhu ugu horeeyo oo sabab u ahaa in raashinkan inoo yimaado dawladaha xiriirka ay la sameysteen ay keentay inay runtii ay caawimadaas naga soo gaadho intii kale ka shaqeysay runtii aad baan ugu mahad celinayaa waxaana runtii raashin 1500 qoys buu ahaa aad buu u yaraa runtii aad buu u yaraa laakiin waxaanu isku daynay dadka inta ugu liidata inuu raashinkaasi gaadho goob walbana wax la geeyo gobolka kamid ah runtii raashinka uu gaadho marka insha Allah dadkayna waxaan u sheegayaa wixii dambe soo galan inuu soo gaarsiin doono haddii alla ka dhigo waana xumo jabinun baahi aad u xoog badan baa taala abaartuna runtii say gobolada kale uga jirtaa gobolkan uga jirtaa inkastoo gobolada barigu runtii naga sii liitaan laakiin waxaad moodaa inayna bilowday biyo la'aan ay ka jirto meelaha qaarkood biyo la'aan ka jirto xoolaha badankooda ay tageen dad jilicsan tuulooyinku isugu haray waxaan jecelahay xukuumadda iyo guddida abaaruhu baa inaanay gacanta kala bixin ay wixii ay geysan karaan gobolka runtii u geysan karaan ay u geystaan dambe guddidan kasoo gudoontay guddida abaaraha waxaan u ballan qaadayaa inay si joogto ah u noqon doonaan guddida abaaraha ee gobolka si joogto ah u noqon doonaan wixii aan ka fiirsan doono cid aan ku kordhin doono laakiin 6 xubnood oo xil ka saweeyay shaqadooda ka adkaaday aad baan ugu mahad celinaynaa waxayna noqon doonaan guddida abaaraha ee gobolka aad baan idin salaamayaa